mahad faarax jaamac oo ku magac dheer mahad baraar magacaya naanaystana waxa qaalisan naanaysta markaan ahay mahad faarax jaamac ku magac dheer mahad faarax waxa jira wiil aan dhalay oo deeq mahad faarax jaamac la yiraahdo cali deeq oo aan laascaanood ku ogaa oo laga tahdiibiyo dadka kaxayay isaga iyo dad fara badan oo kalaba la sii mariyay boosaaso loo gudbiyay Yamanta markii Yamanta ay marayeen jeel lagu xireeyo laga yar qaaday muddo ku xareysna ka soo baxsaday isagiyo qayb dadkii la xireeyay kamidii isu dhiibay nimanka wax tahdiibiya dadkii markay ururiyeen dooni bay saareen sida nagu soo gaadhay doonidii waxay kala baxday Yaman markay Yaman kala baxdayna waxa helay wax Ilaahay u soo diray diyaarado gantaal baa lagu dhiftay baa la yiri isagii iyo dad badan oo kaleba waxna way dhinteen waxna way dhaawacmeen anigu waxaan dhalay ninka la yiraahdo deeq cali deeq mahad faarax jaamac ana dhalay ninkaasi wuxuu dambeeyay 7 nin 7 nin sabab li aadnibay ku bixeen wuu u dambeeyaa sheerka ragiisi halkaas isku raacay kaasaana u dambeeyay cabashada baaqa waxaan u dirayaa wixii islaama iyo hay'adaha caalamiga iyo hay'adaha xuquuqul islaamka yaan baaqa u dirayaa waxa igu soo haray maata kaliya anigu 70 jir oo xanuunsanayo oo kii u dambeeyay ka yahay waxaan markaa baaqa u dirayaa dawladdu islaamka ilaahay oo dhan baan la jeedaa wixii islaamka ku abtirsada cid bil aadni cid islaam ku yaal hay'adaha caalamiga dawladaha dibadda kuwa gudaha yaa baaqa u diraya waxa igu haray dad iyo duuyo dumar khaliya oo aan nin kali wax nina oo xiliya laga taabtaa ku jirin dulmiga isaga yaa igu yimi waa wax Ilaahay qadaray laakiin bil aadmi iga yimaadeen dadka faraha badan ee dhintay deeq mahad faarax cali deeq mahad faarax jaamac oo waxaan dhalay oo ragal mid dibad ku maqalmayo ugu dambeeyay aanan nin kale baahayn ilaa 4 jir ilaa 3 jir ilaa mid weyn 7 iyo 3 guna waa maray waqti waxa ay la kulmay iraada Ilaahay weeye waxaan cabasho u gudbinayaa dawladaha caalamiga dawladaha iyo hay'adaha caalamiga iyo wixii islaama halkaas nabad iyo warsan